ciidamada huwanta ayaa goor dhow la wareegay deegaanka Masagawaay oo al-shabaab ay ku sugnaayeen muddo 13 sano ah. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada gudaha ay u galeen deegaanka muhiimka u ah qabashada degmada Ceeldheer. Qabashada magaaladan ayaa timid kadib markii ciidamo u talaabay sohdinta Galgaduud ay gaareen magaaladan. al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Masagawaay kadib markii ay ka warheleen inay ku soo dhaqaaqeen ciidamada dawladda. al-shabaab ayaa 2009 qabsaday Masagawaay kadib markii dagaalo xoogan halka ay kula galeen dadka shacabka ah. dagaaladaas ayaa sabab u noqday inuu maalmo ka socdo Masagawaay iyo Ceeldheer, balse dadka deegaanka oo xilligaas helin caawinaad ayaa laga qabsaday. waa deegaan muhiim ah sidoo kale sahlaya qabashada Ceeldheer iyo Xaradheere, waana mid kamid ah guulaha ay soo hooyeen ciidamada huwanta. al-shabaabkii ka baxay Masagawaay ayaa aaday dhinaca degmada Ceeldheer, waxaana maalmo ka hor saraakiisha ciidamadu ay sheegeen inay tagayaan deegaanada ay ka joogaan Mudug iyo Galgaduud. ciidamada dawladda ayaa sameeyay dhaqdhaqaaq isdaba joog ah, waana magaaladii ugu weyneed oo ciidamadu ay ka qabsadaan shabaab tan iyo markii ay u talaabeen sohdinta Galgaduud.